ku dalxiis dalkaaga damaashaad ku joogo dhulka daaqa wacan li iska daawo kaymaha ka rog doorsaayis oran dal shisheeyaha u kici saan ku oran wata hada ma sata إدبتي حشوتك وأبا بساها نولو لا يتيم وأبا بشاها عادون إري أقوم بي أفك أودكتاها إدبتي حشوتك وأبا بساها نولو لا يتيم وأبا بشاها Oyowa udubki ay kason kamayin Oyowa udubki ay kason kamayin aqoontiyo wax gaarada kooda Oyowa udubki ay kason kamayin Oyowa udubki ay kason kamayin aqoontiyo wax gaarada kooda Aligeedana leertaho awoodi yakartay ku ilaalisa ku agaasinta ku ilbaadisa Aligeedana leertaho awoodi yakartay ku ilaalisa ku agaasinta ku ilbaadisa ummadeedana kama gashay way ittitaabisaha ummadeedana kama gashay way ittitaabisaha abalhoyo alamoye adane ma ofin karaaye xaqeedaha ilaawina abalhoyo alamoye adane ma ofin karaaye xaqeedaha ilaawina سفري وينك لا فوقنا عشقاقا سدفر يبقى فليا وفيو بديدنا وعدي فيو kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan iyo si kastoo muuqeen oo idin soo gaarayo maanta waxaan ku suganahay deegaanka Qoryacado oo ah deegaan dhanka bari 8 kiiloomitir qiyaastii ka xiga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud deegaankan waa deegaan dalxiiseed ay maalin kasta yimaadeen boqolaal dhalinyaro ah oo ka soo tagay magaalada Cadaado waxayna jeedka ay u yimaadeen ay tahay inay sawirrada ku galaan maadaama sida u jeedaan uu yahay deegaan aad doog u leh oo isla markaana ay ka soo baxeen dhir aad u cagaaran oo qurux iyo mataqaana nimcad bay Ilaahay isugu keenay sidoo kale deegaankan waxyaalaha uu uga wanaagsan yahay deegaanada kale oo dadku ku sii jecel yihiin waxa kamid ah garowgan aad arkaysaan oo maalinkii hastamada ku macaan dadku waxay soo qaataan cuntooyinkooda sida maanta halkan ay u dagaan habeenkiina ay magaalada ugu hoyaadaan maantaasna ay u qaataan jawi ka qorxon jawigii magaalada waxa magaalada looga maarmaa xilligan oo kale goobaha dalxiiska ee magaalada oo aan ahayn goobo mataqaana dadku ay si kasta iskaga sii joogi karaan marka deegaanka dadku waxay u soo xushaan qiyaar ahaan iyo mataqaana jawi ahaanba muuqaalkeena maanta marka waxaan xooga ku saari doonaa oo ah mid kaliya ee aan u soo doornay inaan idin soo tabino dhalinyarada ku dhalatay magaalada ee yimid miyigan
deegaankan dhirtan cagaaran waxay ka yaqaanaan geedaha magacyadooda iyo waxaanu fiiri doonaa ujeedka halkan ay u yimaadeenba ayaan maanta muuqan ku eegi doonaa na soo raaca هو سعد كاللوب تحديد هو سعد كاللوب ويدعي لها hadda waxaanu eegaynaa dhankaas oo dad jooga oo dhalinyaro ah si aan wareys ula soo yeelano marka iminkaan baxaynaa bal wareyskan soo dhex maray annaga iyo dadkaas xagga jooga aad arki doonta insha allah jacaylkuma warayste waygu waa beeriste halbowluhuma wado dhiigi wadnahana maasiiye wadkigii ha noqonine halbowluhuma wado dhiigi wadnahana maasiiye wadkigii ha noqonine dadadigu wacantahay anay wadhiiraade dadadigu wacantahay anay wadhiiraade kuna wanaagsan oo wacan daawadayaal hadda waxaynu la kulannay qaar ka mid ah asxaabteennii oo maanta halkan u timid dalxiis inay halkan jawi kala duwan ku qaataan أصحابتي اللي جوا أحمد سعديو فضحي على الظاهر دمانتود وأصحابتي مجالات عدادو وما تلقى بان كلن كيالنا waxaan ugu horeyn soo dhaweynayaa Axmed oo garabkayga midig taagan kadibna xaggan u wadi doona Axmed adaama ku soo dhaweynayaa bal maanta ay tahay joogan qoryacado iyo dhirta iyo sida bal joogan bal farxad sharaxanaga ismaano meeshaan waxaan ku qiyaas karo horta male horta markii saddexaad weeyaan imaado ها سدح جيران قفك ورا ماشا انت هذا الراب كدانا وان نقضي تاريخ ويتاس الله كلغا مالين سو وريد مالين مايا اني ركلان نمد لكن صور قفك قادك وريانا لكن يعني ماشان هرتو مeel taariikh leh waata waxa uu soo dhacay tareewi gab tiri jiray barashada dhulkaaga bariya la isku hawla dhigi jiray ya ana dhulkaas uu ka sheekeynay sida macna dadku sida uu kala u haystaan habaas inay tahay dad u haysta moogta laakiin ma aha dhulkan waa dhul wanaagsan oo qodgoon leh qurux leh indhaha soo jiidasho leh laakiin wuxuu waayay dadkiisa bisa waa Yurubtan arkay ما سان ما هين لكن ده صدق كدكتي ورا ما لما دس واتهاي سعديه مركان حق وعني سعديه بالمانتي ماشي عاد تمد هذا كهر ما تمد هذا تمس maxaa ka taqaan dhirtani waxan ma santa Usmaan wallahi aan galabta kahor ma imaanin meeshan geedo qurux badan ma sha Allah dhir qurux badan soo jiidasho leh galabtaan igu horeyso dabcan wax geedan ka garnay waxa ka jiro geed quracal oo geedaha yiriiska dhan aniga ma kasay waxaan garnay laakiin waxaan kaliya ogahay in yani meel qurux badan soo jiidasho badan ee tahay ma sha Allah waa indhahaaga wax ka garanaysa waxba cagaar waxba geed ba taagtay ya dabcan way soo jiiteen qurux beerta banaadir iyo bal ka waran halkan xasla wallahi halkan beerta banaadir iyo beeraha
waxa laga yaabaa in geedo xadidan kaliya ku yaal laakiin meeshaan any Ayuhana. geed ka rabtaha geed ka maasha Allah geedo kala duwan flower qurux badan laga ma sheekeen karo adiga horta waxaan kaa qornay sacdiyo geeda quraca ka taga ha ana qurxaga aqaana Waay, halka halka isig Fatxi Shariif aa joogta Fatxi Shariif waxaad tahay dhalinyarada magaalada suxufiyiinta magaalada waa kamid tahay dhamaantood asxaabta ay jooga suxufiyiin daawadayaal hada dib idin xasuusiyo Fatxi soo dhawow bal adiga dhankaaga maxaa meeshan geedaha maxaa ka tagaa ma qurac baa taqaan kale waa mahadsantahay Cismaan horta aniga geedo badan aan aqaano meeshan ku yaalo runaantii saddex markii loo dhigo meel waan aqaanaa ay ka mid yihiin geed la dhaho dhuumood oo meeshan ugu jeedo galabta aan baryahan aan ku arkin magaalada aageeda ay fiican tahay saayid aniga baadiyaha waa hada garanayso baadiyaha ayaana ku soo dhaqmi jiray geedo badan oo soo maqlay ka bal ayada ka dhaxgelin ayag dhuumood waa ku haya dhuumood meegaag miracas jilab iyo geedo kale badan oo run ahaantii oo garoonjo geed la dhahayo waa galabta waa arkay oo asna la cuno kuwan oo roobka la socday geedaha roobka la socday ma aqaano geedo kale waxaa jiro la socdo waa ku kaxarka ma iyo waxaas ma karo wata farxinta tagaayna geeda jiro oo isna taariikh Soomaalida ku leh oo dabcan dad badan oo aqoonin inay galabta aniga xitaa dad badan aan tusay waa uga rabnahay Cismaan iyo Axmed iyo iyaga saykay dhig jiray dad fiican waxa aqaanaa geedka sheegtay geedka waxa la dhahaa geedka waxa waa Soomaal magaciisa horta ma aqaan cafwan waa ka xumayna magaciisa maanta aqoon wixii loo isticmaali jireen aqaanaa Soomaalida hore runtii inta warshadahan iyo waxyaabahan adduunkan casriga ah teknolojiyada la gaarin la gaarin horumarkan la gaarin gaar ahaan dalkeena Soomaalidu waxyaalo u gaaray lahayd oo dadka kale ay maartay kaga fiican tahay oo wixii iyadu markaas ay weyso waxa dhulkeeda ku yaala ay u isticmaali jirtay geedkaas waxa loo isticmaali jiray xilliga hore waxyaalaha lagu meerto sida shaambada oomada iyo saabuunta intaas uu ka timaha xilliga hore dumarka timaha ay ku dhaqan jireen dharka lagu dhaqan jiray jirka lagu dhaqan jiray hadda ma idin jarnaa ya Soomaalida wasaq ma laha jirin Soomaalida ma ya biyaha cirka ka imaado horta Fatxi su'aal ma ku jirta geedkaas waa sheegtay laakiin waxa jirta ooma ma jirin saambare ma jirin Soomaalida waxay qaadayeen sida aan aragnaba dharka dhaqanka hidaha leeyahay cadcadi marka maraca iyo biyo la'aan oo malaasha malaan action ka si la isku keeni jiray la yaab waxa la isku keeni jiray geedka horta waa geed oo abriya asaga lagu shaqeeyo asaga abriya markuu abriyo sida shaambada uu abrido uu abriya wax cadaan oo soo daaya marka saada gacnaha ta ku tira gacnaha mariso oo saas tira ayaga waa sida shaambada kala noqda marka wuxuu uga duwan yahay mabalaha corona ma jirin laakiin Cismaan oo midaa jirto gobol dhaha geedka sanadiisa dub maaha aleera geedkan waxa lagu sameeyaa ma ahan caleentiisa caleenta waa aragtaa waa cagaar oo way haleynaysaa maryaha cadaanka ah caleentiisa ma ahan ushiisa kaliya dhulka la qoday waxa laga soo bixinaa meel kuusan oo xididkiisa ku agtaalo in iyada markaas in loo isticmaalaa sidii saabuunta Fatxi wax tilbaadada ku soo dhaqmi jirtay maryaha ku dhaqaa jirtay على داير أو أبوان كينيا نلتشوجا waxaan rabaa inaan hal awr caldaahir inaan siiyo markaana caldaahir geedaha xaa ka taqaanaa adiga waa maasantaa Cismaan horta geedahan oo geedo badan baa teed kale waxaa tirinay aan lagu soo laaban geedkii mar la sheego geedkii mar soo keep going waxa laaga ma jirto geed maanta waa faqri bax geedahan oo aqaan waxa kamid ah geedka loo yaqaan yamaargo waaw واجهرب يلا يمر جيروي حي وكذا او سعدي اي تريد نروح قال سعودي كل بدري انا بعد الراب قال لي يمتي راب قال لي ما يمتي كيداس بكمل ايوه جيت كل يقان يمرق sidoo kale cawsku waa kamid asagana caws in la sheego waa suurtagal cawskan waa aqaan laakiin waa ilaa farxiya ka tagi wadaciid geedo badan jiran een ardayro waxa laga rabaa maanta maadaama abwaankeeni wata meel tuu qurxoon aan ku kulanay maanta maxaana leedahay niyo ma sha Allah nin horta aanu maanta jooga meesha aan joogno waa meel aad u qurux badan dhul dalxiis ku wanaagsan
ودد waxaa jira wadamo shisheeye kale iyo dalxiiska aadi dalxiis washishey ha jecel aan waxta ha marka ani qof walba oo asxaabta waxaan dhihi lahaa dalka ku dalxiis dalkaaga damaashaad ku joogo dhulka daaqa wacan li iska daawo kaymaha ka rogso doorsaayis dal shisheeye u kici saan ku oran wata aad u maasanta qof kasta waxa u dhaantay dal kala dalxiista sax maana inuu soo dalxiisto labtay dhulka haddii la isku fiirso dhirta iyo dadka aad bay u kala yihiin waxa carabta iyo xoolaha daaqay iyo oceanka waa ma oo inta nadaan timid qof kasta qof kicilna وتجيو جو دقن وقاتل هذا ما سنتين صاحب بيال داودياش أنا شرفت له داونيا وحنا لنا هاي الناس برامج كسر جبينا هذا ما سنتين داوشدينا يوحي فرين يكومنتي لا اكتسب سكراب كذا مان نور يا أصحاب كلنا بالقرآن كنا ولاياي مسك فريق النقطاي نفك عادك ويدا ويدا نولان ما يصير نفك عادك ويدا ويدا نولان ما يصير نفك عادك ويدا ويدا نولان ما يصير دياش ما بناقي دياش ما بناقي يدعس قلبا ندبي حنون ليه يدعس قلبا ندبي حنون ليه نقطاي نفك عادك ويدا ويدا نولان ما يصير نفك عادك ويدا ويدا نولان ما يصير نعنها بالقرآن كنا ولاياي مسكي نقطاي نفت عليك ويدا ويدا نولان ما يصير نفت عليك ويدا ويدا نولان ما يصير يقيميسا أنا عمد كذا كويدو قلبي قابوسي وكويلا